بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan bilaabaneynaa su-aalaha la soo diyaariyey oo inooga jiro sheekh cabdirashiid. insha allah su-aalaha ayaan bilaabaneynaa. su-aasha koowaad waxay leedahay sheekh, anigoo kitaabka qur-aanka ah akhrisanaya, haddii weesadu iga jirto ma sii wadan karaa qur-aankii akhriskiisa? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كتاب القرآن كاه قفك يسوع آخر السنة يا هذه ويسدو كتبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قفك يسوع كتاب القرآن كآخر السنة يا هذه ويسدو كتبته. كتاب القرآن كاه meesha ugu dhow oo u dhigi karo ayuu dhigayaa. inta yar oo kitaabka meesha dhigayo saamaxaad weeye, laakiin ma si haysan karo kitaabka qofkii isagoo aan weyse qabin. qur-aanka inaad kor ka akhrido weysada looma shardiyo. waa sunna inaad u weysaysid markaad weyse qabin kor ka akhridid, laakiin qofka kor waa ka akhrisan karaa isagoo aan kitaabka waxba taaban weyse qabin. waxaa kaloo dhici karta qofka waxa weysada ka jabiya waa markuu yahay xadas al-asqar wax la yidhaahdo, wax weyse jabiya uu yahay ee uusan ahayn wax qubays keena. wax qubays keena hadduu yahay iyada qur-aanka kor kama akrinayo, qur-aankana ma akrinayo. marka sidaas u kala duwan yihiin. sideedana waxyaabaha weysada marka qofka ka jabto laga joojiyo waxaa ka mid ah dawaafka ka mid ah, waxaa ka mid ah qur-aanka iyo kitaabka akhrintiisa iyo kitaabka qur-aanka qaadistiisa iyo taabashadiisa ka mid ah, waxaa ka mid ah salaada ka mid ah. marka taas qaybtaas uu ka mid yahay qofku waxa weeye kitaabka qur-aanka ah waa uu joojinaya. su-aasha labaad, sheekh, intaydu waa tahay mana tukado, haddaba reerkaas beeranaya xaalkiisu muxuu yahay? بسم الله الرحمن الرحيم. gabadha waxay tiri ninkaygu waa taariku salaad, waana wada dhaqanaayo reer tarmayaan nahay, xaalkiisu muxuu yahay? taariku salaadka culimmadu way ku kala bedelan yihiin. nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofka salaada ka taga wuxuu yidhi waxaa lagu kala gartaa calaamada gaalada islaamka lagu kala garto waa salaada, qofkii ka taga waa gaaloobaya. gaalnimadaasay culimmadu kala qaadba si u qaateen. waxay leeyihiin qaar gaalnimada diinta looga baxaya maaha, qaarna waxay leeyihin waa diinta looga baxayay. haddaynu marka madaahibta qaybo ka mida soo qaadno, imaamu axmed ibnu xambal iyo dadka la midka ah waxay leeyihiin qofkaa salaada ka tegay aan tukanayn, haddii uu yidhaahdo salaada layguma laha iyo haddii uu yidhaahdo salaada waa laygu leeyahay laakiin tukan maayo uusan tukanayn, waxba la kala saari maayee qofkaasi waa gaaloobay, islaantiisina waa ka furantay, dabeex neefka u gowracana la cuni mayo, markhaatigiisana la qaban mayo, muslimiintana lala duugi maayo. waa qof diinta murtad oo kale wey. saasay yidhaahdeen. ama imaamu shaafici raximahullah, shaaficiyadu waxay qabaan madhabkan qofka in laba loo kala saarayo taariku salaadka ah. qof salaada inkiray kaas waxay kala mid yihiin culimada kale sida xanaabilada iyo waa gaaloobay weli haddii salaada layguma laha. laakiin hadduu yidhahdo salaada waa laygu leeyahay caajis iyo kaslaan waxaa uga tegaayo, waxay yidhaahdeen waxa weeye qofkaasi waa toobadkeen baa la oranayaa, toobadkeen baa la oranaya. hadduu toobad keeni waayana yani waa la dilayaa siday madhabta kale waa qabaan. saasay oranayaan qofka taariku salaadka waa xukunkiisa. imaam waxaa la weydiiyey ibnu taymiya oo waxaa la yidhi ka waran qofka taariku salaadka reerkiisa ma ku xiran yahay? markaasu wuxuu yidhi hadduuba nool yahay ku xiraado, hala yidhahdo waa ku xiranta iyo kuma xiran. maxaa laga weydiinaysaa? hal madhaba oo ogol inuu noolaado ma jirto. taariku salaadnimadu haddii sharci diinaba loo helo, diinta islaamku hal madhab oo qabta ninkaa in la deynayo ma jirto. kulli dil bay ku xukumeen fuqahadu. waana sidaas qofka hadduu salaada diido waa la dilayaa.
oo waxa weeye salaada tuko qolada ugu roon waa qolada 3 maalmood baa loo kaadinaya waxa la raayo salaada tuko hadana tuko waa lagu dilaya oo loo sheegay sida la marinayo 3 bari kadib baa la dilaya laakiin shaafiiciyadu waxay qabaan hadii la dilo oo salaada darteed loo dilo in aan quburaha muslimiinta lagu aasay maadaama ay salaada waa lagu leeyahay oo tukan waayay وصل إنكرسنين قبرها مسلمين تعالوا لا آسيا واحد يكون كلا دواني وحياة ببضن قف كيسجى مسير كيس إنه قال له هذا أما يوسف قال له هو وحكله لكن قال كوا دكتي هدي قف كلا وحكم حتى عروت سودح الميز قال المسلمين تميل كلا لا آسيا علماء القارب فويس وحي يرهدين حتى شافعي الأقواش لو حكم يرهدين حتى مسلمين تاني على الدوينة قبرها قال لي قبرها مسلمين تبحث هالجدو مال والحس مركب قف كاتارك صلاة قف غير ترك كل عليه ويه qofka isqabaana waxyaabaha bay ka mid tahay qofka dumarka ah ee maxkamadu tagi karto oo ninka haduu salaada tukan waayo marka hore horta wacdi hal ku daydo dadkii wax ka maqlaaya ha u yeerto aad tiraahdo ninkaan anu inaan maaragtay dhibkaan kuma jiri karo hadee isqabidayada waa war ku jiraaba haduu ninkaas madaxaaga warkiisa ku adkaysto waa waxay maxkamadu ka tagi karto oran karto ninkaan qaabkan diin xumada kuma dhaqmi karo marka qaali waa ma yiraahdo reerkii isaga marka qaaliga xal keenaya marka aad iyo aad qofka taariikh salaadka umadeedana waa ku badan yihiin oo waxaad moodaa in dhaqan laga dhigtay ba maaragtay taariikh salaadnimada dadkii hore waxay oran jireen kooxda maaragtay waa fardoole waxay ka wadaan nimanka fardaha ka haysto oo reebaadii hore maaragtay salaada ma tukan jireen dadkay soo dhici jireen waa fardoole hadii la yiraahdo waxa hadalku ahaa macna salaada ma tukadaan marka qofka salaada ka tagay aad iyo aad u khayr daran yahay markastaba waxa weeye hatta hadii la yiraahdo إمام الشافعي أحمد بن حنبل بمناظرة أحمد ديفاني ياسو أحمد بن حنبل إمام الشافعي وكير أحمد بن حنبل توير وقال وحوير محو لا إله إلا الله حجيمك عادي سام قرنا الصلاة وكتجي لا إله إلا الله بوليه إسلام بانه بوليه هاي يدو حجي عادي سام أيوة كوض هذا أيوة من خسارة درتين قف كاتار بصلاة كوحل الرواء إن ماركتي قف تردق ميساء الميل صارت وحوي شرعي أيوة ولا نقطوي وبالله توفيق جزاكم الله خيرا سؤال سبحان شيخ إلى يعقل دائما قواتها وعدتنا نقصي مصر أضرب دمي ميا وفكي إلى كدتي إلى بسم الله سيدة بقى دينتا لقاته وقف دينكو سيو dadku waxa loo yaqaan deynku qardigu waxa weeye qof intaad muctaad u noqotid u baahatid inaad u tagtid oo tiraahdo hebel waxa ay deymi dabeedna qofku shayga ku deymiyo deynta noocaas oo qardiga ah waxa la yiraahdaa nisfu sadaqa weeye haddii aad qof u $10 ku deymiyo ama 10 dirham ku deymiyo wuxuu ka dhigan yahay qof 5 dirham sadaqaystay ama $5 sadaqaystay ku ka dhigan yahay waa sadaqada barkeed baa la yiraahdaa يعني دينت محايل وواحد عادي أضيف فضل بدن وقفك وحكي دين شيء قف باهن وما تحولين معتاد وتهاي وكسية لعقت عم هنتدي هذا ودنا مدة هذا قوتي تكون كارثة الوقت قاسم تكون كارثة أجر بكهلا يا قف كاسي وأنا شيء سناه الله باهن يا هاي وقفك مسلم كواجبكم معها دون ضروري حس ودي سنكر لكن وشيء سناه دينته أتعيشها يا قفك معتاد كباهن لكن مدة هذا ما عن استعماله وهذا مقالة إن امتحانك الله كقدر جاي oo dadkii reer miyiga dadkii xoolaha keensanayay inta suuqa keenaan suuqii dhanba laga dhigay shay wax la kala deeminay taas deyn ma waa ganacsi qaabkii ka dhumay oo qofkii inta badacad xoolihii la keeno ee suuqa la keeno xoolihii markaas beecii la isla gaaray markii qiimihii dhaco oo qofkan uu lacag yeesho mushtariga ah qofkan waxa ka baayaca xoolaha watana uu lacag yeesho kii xoolaha doonayo lacagta la bixi lahaana uu neefkii yeesho xoolihii yeesho ayaa meesha waxa ka soo baxaysa kani wuxuu ka haysanaya neefki xoolaha la rabay inuu lacagta baxsho qofkiina lacagtiisa siin maayo wuxuu oranaya lacagtaas waa igu maqnaanaysa waa deyn sharciyan way banaan tahay oo arintaas way banaan tahay has oo macnaha waxa banaan in shayga intaad badeecada kala gadataan markii qiimihiisa la isla gaaro qofkaanu shayga ka haysto lacagtina iga soo yiraahdo waa wax banaan laakiin ka war hadii mujtamaci dhamaaba oo suuqi dhamaaba saan noqdo oo wixii ba isu bedelo lacag uu la sugayo oo dadkii xoolaha soo kaxaystay ee darar ku dhaco intaas oo bari u joogan neefafka keensadeen oo neefafka suuqa ku cunaan arintaas way dhaaftay deyn waa ka baxday waxay diinta islaamka nabiga wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam la darara wala dirar inaad ku raaxaysatid oo mafax ka raadiso qof dhibkiis masalaas ka soo baxaysa masalatu darar
يعني الضرر يزال وقاعدة إسلامية وفقهاء يقولون الضرر يزال قواعد الخمسة كمية شنطة قاعدة هو وين نبكي ولا السورية وحن ونب صبح ظاهرة وين ما هديمة كلامات كلمة ما من ذكره waxyaabaha kale yana yimaado waxa kamid ah qofkii markii waqtiga la gaaro in hadana lacagta marka la yiraahdo lama hayo taasuna waa dulmi labaad oo qofkii laga sii galay oo ballantii la sii dheereeyay laga yaabo xataa lacagtu aan dhamaysan inaan la siin marka dambe waxa dhici karta in xataa dadka qaar kood lacagtii la dhuntaan waxa soo aafooyina jira dadka suuqa ka shaqeysta Allah ka cabsada subhanahu wa ta'ala qofku intuu wax doonto meel kasta waxa ka keensadee inuu shayga uu gatay lacagtiisa ku iibsado oo qofkii maaragtay baadiyaha wax ka keeno isbadhi banaa uu suuqa wax ku oran ee uu farta ka saaro wixiisi kadibna uu wixiisa isagu suuqa geysto goorkasta ha u soo baxdo cidina ay meel u fadhiyo dhowrayn oo la heendeen baa lagu leeyahay hadba loo imaanay la soo dultaagnayn sidaas qofka waxa uu jira aakhiradiisa nazaahadiisa iyo dib yaraantiisa aad iyo aad baan arrinta uga digaynaa waxa weeye hadii la heli lahaa dad wax qabanaya مسألة هلا ترتيران رنا الله أو قف والبلعتها هلا يعني واحد يلا كاش تو كاش يعني هان تو هان يعني من اليد إلى اليد قعنتها اللي سيدي بحولها لعقتها سيدا صديق رئيس كريم بعدنا أقول نبتون قوان لفتوضنا نب أنت الله كل ما وأنت قارب على دعواني على حيرة وحي الله يبيعونه يعني باتي لكم ما يعني حق الناس إذا قفك هتوك قبصدك إلى هذا أدل حقي أدي أنا واحد رئيس ساعة وحاول نبه إيمانه والنبي صلى الله عليه وسلم وأكد عيسى الدين لو يشوف اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال حديث إله حكام وينقلي إن دين قال النقطة الدين لا يقول يشكر بلن سلام مركا دينك اسكت حوايه هذا أنا قهر الرجال بإيمانية قفك السوء ده جيسي هدي لي حقه يسي مسكين بالقرآن قال قهر الرجال وإيمانية هدي غلبة الدين تمام واستبت تجين وحي أدل لي حق وحي يسي هدي لي هذا مسكين بالقرآن الدلوم إنسان مركا هرب يسوفه waxa uu keenta qofka wax ka qaadanaysa wixiis uu raadi horta adoo aan wax haysto wax gado saasaan dadka ku boorin lahayn laakiin asalahaan wax la kala deynto waa shay banaan wallahu a'lam jazakumullahu khayr su'aasha afraad sheekh hadii suwaga caanaha malabka la barxo maxay deyntu ka qabtaa bismillah arrintaas waxa way tadliis weeye qofkii in la yiraahdo malab baan ka gadaya ama caanaan ka gadaya ama subag baan ka gadaya oo subagii saliid lagu daro wax kale lagu daro caani biyo lagu daro oo malabkii sonkor lagu daro wax kale lagu daro qish marka tadliis iyo qish baa ku jira marka arrinta ayada wax banaan maaha bal iska badaayo waa dambi khatar aad iyo aad u khatar weeye oo qofku inuu waxa soo kale noloshiisa ka raadiyo ku ganacsado arrin xaraan waa tadliis qofku waxa la moodayaa waxyaabo badan baa kamid oo nooca baabkaas oo kala ah manhiyaadka beeca marka la joogo ay kamid tahay waxyaabo la diiday qof baa neefki soo gaaxinayo oo neefki caanadii buuxdo uu keenay intuu afar bari soo gaaxiyo waxa la moodayaa neef caana badan saas laga garanaya qofkii waxa weeye hadda markuu xagga geeyo neefki la liso subaxdii labaad bas neefki caana ma male waa khiyaano waa qish nabiga sallallahu alayhi wasallam waa diiday waxa soo kale ninkii lagu khiyaano saas oo kale hadda neefki waa soo haduu siisa ku qaado nasiibkiisa ku nasiibsanayana waa yeeli karaa hadii kama biici waa laga celinaya kadalika wixii barxan oo dhan malab ha ahaadeen caanaha subag hada waxa kala ahaad wixii barxan oo dhan qofka haduu ogaado inay barxan yihiin qofkii lacagtiisa buu qarar baa lagu waxa tadriis baa lagu sameeyay qofku waa inuu iska celin karaa waxa weeye lacagtiisana waa uu yeelanaya maxaa yeelay wax kish ku jiro baad ka gatay waana dambi khatar weeye inaad waxa noocaas oo kale umada loo qariyo dadkiina hadda Allah waa ku imtixaamay koonfurtaasaan Soomaaliya ku arki jiray dadka caanaha barxa laakiin hadda waxa weeye waa dadku waxay bay barteen nasiiba malabka iyo waxa way aad baa loo barxaa iyo maaragtay aan suuqa ma arag laakiin malabka aad baa loo barxaa waxa la moodaa war iskaga dareeyo waxba ma lagu dardaraya masalada iyada marka masala banaan maaha waa masala xaraan dambi khatarna weeye qofka muslimkaana looma ogola nabigu suuq uu soo maray sallallahu alayhi markaas wuxuu arkay raashin meel karooran raashinka marka nabi weeyo nabiga waxa laga yaabaa in ilaahay xaqiisa wax looga uga sheegay markaas nabi intuu meeshii raashinka karooran gacanta sida u xuluuliyay buu gudihii soo saaray raashinka ku jiray oo ala 10 saac ugu muujiyay isagoo qoyay korkana raashin qallalan baa saaran markaas uu yiri ma hada ya saaxib at-ta'am waa maxay waxaan qofka raashinka gadanayo waa maxay waxa kale markaas asaabatu as-samaa rasuulka Allah roob baa ku dacay si afala jacaltahu fawqa at-ta'am ka yarahu an-nas ma inta qoyo kor soo maris say dadku u arkaan inay ku gataan qoyaankiisa ama kaga tagaan man qashana falaysa minna qofka naqish nagu sameeyaa naga mid maaha
naga mid maaha waa gaal culimadu ma oran waxay yidhaahdeen manhajka iyaga saxiixa ahaa iyo diinta iyadii sunnaha iyada xaq ahayd kuma taagna qof dariiq khaldan u leexday wey wallahu aclam جزاكم الله خير سؤال ششنات شيخ أقوم وراء عليا وأنا قرآن بيرن سكت المسيح بسم الله dadka walaalaha ay isla dhashay haddii qaarkood ay baahan yihiin ama agoon ha ahaadeen ama agoon yay ahaan sekada waa isa siin karaan waa wax u bannaan dadka waxaa la yidhaahdaa maaragtay usuushiya furuucda ah haddaad dadka adigu aad dhashay ama aad ka soo farcantay aabbaha iyo awowaha iyo ayeeyada ay dadka ka soo farcantay ama dadka adiga kaa farcamay ayaa xoolahooda nafaqa isku yeeshaanoo waxa weeye maaragtay kuwan laftooda walaalaha nafaqa waa isku yeeshaan laakiin tanaa ka xoog badan dadka usuushiya furuucda iyaga sekada isma siiyaan haddii waalidka uu yahaan haddii xoolaha wax ku yeelanaya hadduu maal waayo maalkaa wax ku leeyahay haddii adiga kaa farcamay hadduu maal waayo maalkaa wax ku yeelanaya markay seka isma siiyaan laakiin walaalo waa isa siin karaan marka dadka agoontaa sekada waa la siinayaa wallahu aclam سؤال الحال شيخ أعطيني وحول ديالك سكر مرسيكا abtiga iyo xoolo baadiye leh sakada ma siin karaa abtiga xoolaha baadiyaha hadda iyaga laftooda lama sheegin xoolahaas waxay yihiin ma nin dan yar ah oo miskiin ama faqiir noqon kara miyaa ilaa ilaahay baa subxaanahu watacaala dadka sakada la siinaya 8 qolo weeye 8 qolo xataa nabiga looma dayn qur-aankaa sheegay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سورة التوبة 8 قولا سكذا بسينيا marka abtigaasi haduu yahay nin miskiinimadu ay miskiin oo aan hasidiisu ku fileen ama faqiira oo waxa uu haysto wax yar ay yihiin ku fileen sakada waa la siinaya haduu loo fiirsado inuu miskiin yahay ama faqiir yahay labadaas si midkood qaadan karo haduu yahay nin hantiila ah oo aan faqiir ahayn oo miskiin ahayn sakada hasiine waxa way waxaad siisaa kuwa fuqaradaasi iyo kuwa masaakiinta dadka kale aad siinaysaa sifaad dadka kale oo quraanka lagu sheegay ayaa sakadii siinaysaa maxaa yeelay abtigaa qani weeye qof hantiila weeye waa ka kaaftooma markaa siin maysid haddaa sidaada kale ku tiris waa gaar laakiin sakadii siin maysid mar hadduu isku filan yahay hanti fiican haysto wallahu aclam جزاكم الله خير سؤال تضوى شيخ إليها يتمها أولا ملوبيا حلقوا المعين بسم الله timaha iyo cidiyaho la madoobeeyo timaha waxa ku soo arooray iyada nusuus baa jirta qofka ma madoobaysan karo siba marka madaxu cira leeyahay qofka midabada kale waa marsan karaa casaan iyo xinnig cas iyo wax midaba kale waa marsan karaa laakiin midabka madowga waa la diiday dadkii waxa moodaa waxyaabo badan ay isku dhajinayaan hadda waxa way geedkan xadiisku sheegay katamka la yiraahdo oo waxaan ku raahdaa geedkaasi waa geed marka la marsado haddii xoogaa gaduud waa gaduud weeye marka lagu badiyo marka gaduudkiisi baa xoogaa madow soo ekaana dadka waxaad moodaa hadda mar ha iska fiiriyeen dad badan oo marsado waxay ku leeyihiin markaad fiirisid madowgu u egyahay laga yaabo inuusan geedkiiba ahayn laga yaabo madoweyse in lagu soo daray wax lagu gashi lagu sameeyo wax lagu daray marka qofku waa inuu iska fiiriyaa marka madaxa madoweysiisa waa la diiday iyada lama ogola wixii kaloo midab aad marsanaysid marso laakiin midaan cidiyaha ku saabsan ragga iyo dumarku waa kala laba soo ragga waxyaabaha ismarmarinta yani cidiye iyo cilaan iyo hawl dumar weyn ragga shaqo kuma leh waan aragnay inuu wax samaynayo cidiyaha ku marsanay raggaas iska ilaaliyeen tashbiih lisaa dumarku la soo ekaysiin noqonaysa laakiin dumarka iyaga waxyaabaha ay marsanayaan ama gaduud ha marsadeen cidiyaha ama wax kale ha marsadeen mar hadduusan dahaarada weesada wax maaragtay jirka ka marcinayo usan ahayn wax dhibaato ah ma lahaanayo ama madow ha ahaado ama casaan ha ahaado wax diidayo ma jiraan waxyaabaha cilaanada la marsanayo kale ka mid yahay laakiin waa inuusan jurmi lahayn oo uusan weesada jirka ka celinayn wallahu aclam جزاكم الله خيرا سؤال سيدات شيخ سيدي توجيه وحبر شركتي ولا كي وأقوم سكذا مسيكا وعوي سيدي توجيه ولا كي أقونا سيدي توجيه جرا أقون معها أقون ماذا وحلا يقبح عشان يتمنك بحسب ما كان يعلي هذا حاجة بلاغة سيدو أهان شريبا واجهر أنتو يرابو أقونها من ده لكن هذا سيدي توجيه جرا وأنه وين
ninkaa walaalkaa horey baan u sheegnay sakada waa siin kartaa ama saqiir ha ahaado qaangaar ha ahaado marba hadduusan hanti ku filan uusan lahayn walaalkaa sakada waa siin kartaa wallahu aclam جزاكم الله خير. سؤال سجالات شيخ المهن عيسى ملمين كلام caruurta dhiciska ah oo iyagoo aan dhamaysahayn dhasha culimmadu meelay ka bilbilaabaan da-da waxa weeye lagu mayrayo oo axkaan qaadanayo mid iyada waa laysla ogol yahay ida istahalla almawluudu warith ilmaha markuu dhasho hadduu ooyo waad ogtay ilmaha markuu hooyadii jirkeeda ka yimaado waa ilmaha way wada ooyaan ilaa nabi ciise mooyaane qof aan arrintaasi ku dhicin shaydaan baa kelida farta ka gelinaya marka wuu qaylinayaa ilmaha markuu dhasho ilmaha marba hadduu markuu dhasho ilaa nabi ciise isagu shaydaankaas waa laga xijaabay meel cidlaaba shaydaanka fartiisi meel cidlaabay ku dhacday baa yidhahdaa ilmaha mar allaale markuu dhasho bannaanka yimaado haddii nolol lagu arko uu qayliyo waxbuu dhaxlaa iyada marka ilmahaas nolosha ku dhashay waxaa noloshaa la raaciyaa hadduu qofku ilmuhu markuu dhashay hindhisay oo ama uu xarakaad sameynayay oo lagu arkay inuu nool yahay waxa weeye qofkaas axkaam buu qaadanayaa waa la dhaqayaa midda labaadoo iyaduna culimadu ay yidhahdeen waxay tahay dhiqitaanka taa waa laysla ogolyahay ilmaha nolosha ku dhashay hadduu ilmihii maydnimo ku dhasho oo uu maaragtay laakiin suuraddiisa ay joogto oo 5 bilood intuu gaaray suuraddiisa ay dhammaystiran tahay uu qof yahay taana culimadu waxay yidhahdeen qaybo ka midi waa la dhaqayaa waa la kafmayaa bay yidhahdeen maadaama ilmihii uu dhammaystiran yahay maydba ha ahaada markuu dhashay marka taasaa moodaa dadaalka inay u dhowdahay ilmihii hadduu qofba yahay oo suuradda qofnimadiisa ay dhan tahay in la dhaqo oo la kafmo oo waxa weeye isaa lagu doogow ama ilmuhu hadduu yahay ilmo yaro hilib oo kale cad hilib oo kale waxba iyadoo dhiqidna mid kama soo gelaysa khirqa yar baa lagu duubaya mala calala meel baa laskaga soo duubaya waxa weeye ilaa wax way qof ma noqonay ilmi naf lagu ma dhamaystirna taqdiid baa la yidhahdaa yani taqdiidkiisi ma dhamaystira kaasoo kale marka waa iska hilbi khirqa yar calala lagu duubay meel baa laska soo gelinaya ama hadduu dhamaystirmay sida fiican waxay tahay si looga baxo warkaa kala duwanba hadduu qofku qof ahaan u samaysan yahay in saa loo dhaqo oo maaragtay laga soo qaado qof dhashay oo kale ayaa fiican wallahu aclam جزاكم الله خير. سؤال شترنا شيخ gabadhu idaacadaha iyo TV-ga wariye ma ka noqon kartaa bismi illaah waxa weeye gabdhuhu wariye ma ka noqon karaan idaacadaha iyo telefishinada iyo TV waxyaabahaas ayaa la yidhi jawaabtu waxa weeye waa maya diinta ilaahay inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala dumarka waxay ka dhigtay dad la dhaqaaleeyo oo la xanaaneeyo oo guryaha jooga oo ilaahay uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa inay qoftii dumarka ahayd meelaha wareegto oo meelaha shaashadaha laga arko oo halka ay ka shaqayso waxa weeye wax bannaan maaha dumarka shaqada waa loo ogol yahay shareecadu waxay raggii bay saadhay mas-uuliyaddii nafaqaadka wax walba qofkaan dumarkaa marna waalidkeed baa mas-uulka waa gabar oo iyagaa laga rabaa mas-uuliyaddeeda waalidkeed baa nafaqada u saaran tahay hadday nin yeelatana ninkeeda nafaqada u saaran tahay hadday agooley noqotaa darano iyada lafteeda waxa weeye ehlo iyo dawladda lafteeda iyo wixii markaa qoftaas armalada noqoto iyadana waxay leedahay xuquuq bay yeelanaysaa marka taas baa waxaa dhacday marka dhibaato badan inay timiyo dadkiina inaga diinteena iyo akhlaaqiyaadkeena la soo dhexgalayo dumarkii inay wax walba iyaga shaqeeyaan oo la dhex soo dhexgeshay shaqooyinka waaweyn ay qabtaan marka shaqooyin badan oo dumarku qaban karaan baa jira u bannaan laakiin shaqadan ay rag ikhtilaadka intaa la eg iyo qoftaasi mar walba inay halkaa ka qayliso oo maaragtay telefishinada dhex taagan tahay oo idaacadaha ka dhex qaylinayso oo meesha ay taagan tahay ikhtilaadkii iyo wixii laga cararayay ayaa meeshaas qofkaas u banbaxay diinteenuna sibay u socotaa bal akhriya qur-aanka alla akhriyo suuratu axzaab suwarka qur-aanka akhriya iyo suuratu maxaan ku dhahda nuur iyo axaadiistii nebiga iyo looma rabo dumarku inay meeshaas yacni meeshaas ummaddoodna ay wada jeedo oo maxaan ku dhahda qofkii dumarka si kasta u xushmo u leh ay isu asturto oo isu xijaabto oo waxay culimmadu ka murmaayaan codkeedu qofka dumarka ahay ma cawra mise cawra maaha ayaa la isku hayaa ma cawra mise cawra maaha baa la isku hayaa maxaad u malaynaysaa markii qof telefishin taagan oo shaqadeeda dhanba sida tahay ama idaacad taagan arrintaa wax bannaan maaha akhlaaqda qofkay baabi'inaysaa nebigeenuna sideedana qofka dumarka ah waxa ugu khayr badan inta ay gurigeeda joogto ayay khayr ku jirtaa gurigeedana cibaadaha xataa samaysanaysa qolka ayadiyo ninkeedu degan yihiin baa ugu sii khayr badan xataa ku cibaadaysato
masaajidka iyo gurigeeda u fadli badan inay ku tukato oo masaajidka waxa uga fadli badan gurigeeda waxa u sii fadli badan qolkii ninkeeda la seexato ayaa ugu sii fadli badan qolkii guriga intiisa kale uga sii fadli badan tahay meelo mashka asturan tahay nabigu xadiis wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam masaajidka iimaan jireen gabdhihii asxaabada iyo qaybta dambe ku tukan jireen markaasuu nabigu wuxuu yidhi khayru sufuufi rijaali awwaluha wa sharru وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها الحديث كأو فرسو رجع صفوف كيس وحى وخير بدن قوة هراء وحى أشر بدن قوة دمر كحية رجع دمر قدال شو قد دمر كصفقة ذا لو دمر صفقة ذا وحى أخير بدن صفقة دمر وحى أشر بدن مثل رجع سوحي وهراء عكسي ويا يعني أنت أفرس الحديث يا كلي قفك فهمه وقرنا يعني قفك دمر كأنه أسطر لور ربه هي إنك رجع كفقاته إن لور ربه وكسر درتين meelahaas iyaga ah telefishinada ah iyo idaacadaha waa uga digaynaa dumarku inay aakhirada iibsadaan iyo akhlaaqdooda oo halkaa ka raadiyaan mana hatta waxa laga yaabaa in badan oo ka shaqeynaysa inaysan duruuf u geynin ee inay maaragtay u geysay waxyaabo kale oo maaragtay maadaama gabadhii iskuul iyo wiilasha ay dhexdooda jirto wax laga dhaadhacsiiyay wiilkaa la siman tahay oo gaalada wax ka dhaadhacsiisay oo waxa kale iska tuur dharkaan iyo maaragtay xishoodkaan badan waxaan iska daayo waa in wixii rag galaan baa gashido oo meelaha ka khudbaysin waxa laga dhaadhacsiiyay akhlaaqdooda laga ciyaaray waxa la doonayaan gaaladu waa la yaqaan inay dumarka akhlaaqda ka baabiyaan qoysaska baabiyaan hooyo ilmo tarbiyaysan la waayo inayna dumiyaan bay rabaan wax badan waa laga guuleysteen wax badan waa wali waa loo hagaagsan yihiin alla waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala diintan inuu na fahamsiiyo marka gabdhaha iska ilaaliyeen shaqada noocaas shaqooyin kale oo ka xalaalsan oo diintu u gashay doonteen wabillahi tawfiiq jazakumullahu khayr su'aasha kuweytuna شيخ سكذا سهل موجود كرام بسم الله سكذا علماء waxay u qaybiyaan maalka maal muuqda iyo maal qarsoon marka sakada la bixinayo maalka muuqda geel iyo ariga iyo lo'da iyo xoolaha marka sakada laga bixinayo waa xoolo muuqda guri baad waxa saka ka bixinaysaa maxaan ku radaa hanti kale oo muuqata sida maaragtay waxyaabaha marka hantida oo muuqda sakada laga bixinayo iyaga waxa weeye waa wax muuqda culimada qaarkood marka way adkeeyeen madaahibtu waa ku kala bedelayeen xoolaha markay sakada la bixinayo oo qofka laga gudoomayo xoolaha inay adkeeyeen oo yiraahdaan haddaad neef kale siinaysa ama neef loo ah saka u bixinaysid ama aad shay siinaysa shaygii inaad iga gudoonto tirahdid oo adigu aad saas isugu dhiibo ama qofkii wakiilkaaga iga gudoomo yiraahdo niyadiina sida salaada loo niyeysanay marka la galayo la niyeysto oo niyadna la soo xaadiriyo aad fuqaada qaarkood u adkeeyeen saa u yiraahdaan shayga ina kaamilkii ama ka gudoomo qofkii ama xoolaha qarsoon Soomaha iyaga sidee lagu dhiibayaa waxba meel bab maaragtay inaad waxa la yiraahdaa waxun bay kaga duwan yihiin xoolaha qarsoon sida lacagta iyo wixii sidaas oo kale la siinay marka xoolahaasna waxa weeye qofka waxa muhiim ah culimadu yiraahdaan waa maaragtay inaad tirahdid u sheegtid xoolaha aan ku siinayo maalkayga sakadiisa bay ka mid yihiin ma xoolahayga sakadoodii qofka inaad u sheegtid weeye marka hadiiba aad sahal ku diraysid awalan waa ay dhacdo inaad lacag diraysid qofna asaka u siinaysid waa inaad tirahdid sakadii xoolahayga ku siinay qofkii ka dhaadhacsiisid kadibna hadduu ku yiraahdo lacag kale hayn lacagta mobilka ka diraysid mobilkiisana ugu shubaysid markii aad u shubtid waa inaad tiraahdo lacagta ma iga gudoontay waa kaa gudoomay waa kaa haya uu yiraahdo inta haddaa isdhaafsataan ilaa waxyaabo badan baa hadda mobilka la isugu diraa telefoonada lagu kala qaataa haddaad qofkiina codkiisii garanayso uusan kaa gidmanayn waxaad hubtid uu yahay una kaa gudoomay markuu yiraahdo lacagta waa kaa haya si hadda inagu isugu diro taas dhibaato male lacagta maalkana waa maal qarsoon waa lacag waxa la isu diraya laakiin midda shubhadu soo gali kartaa waxay tahay haddii dad xoolo loo soo dhiibay sako oo la yiraahdo qaybiye oo intay dad oo xariir degan intay telefoonada ka soo qoraan ay ugu bimbiniyaan xoolaha ugu qaybiyaan qofkan xataa sadaqada loo soo diray oo saka inay tahay kala waxba oo saka warqabin war sida waa laga fiican waxa ka fiican xoolahaas inaad dadkii intaad u yeertaan oo loo yeero dadka loo la siinayo si fiican iyagoo goobjooga la siiyo si sakadii noqoto wax loola kala wareegay si fuqahadaas maaragtay ilaa dadka fuqahada waad ogtihiin oo iyagu waqtigii nabigana waa nooga dhawaayeen diintana waa nooga aqoon badnaayeen hadhow shaygan qofka aad siisay hadduu yahay wixii muraasala oo kale ama wax qaab kale ah waxaa dhici karta qofkii aad u dirtaba inuusan gaarin wixii ama sakadii waxana waa sako qof bini aadan ah ayaa ilaahay horta agtiisa maalkiisii wuxuu ugu noqonayaa xalaal arkaan khamsa shantii rukni mid kamid ah ayuu xaqeeda gudanaya sakadu wax sahlan maaha qofkaasi marka wax cad oo maaragtay biliil ah waa inuu sakadii ku dhiibaa weey waa mugdi ku jirin sidaa darteed inaad marka dadkii sakadii lagu dhiibay sida dib yar aad meel ugu turturtid adoo aan dadkii waxba u sheegin oo
taa ha la iska ilaaliyo waxa weeye waa in si cad loo bixiyo wallahu aclam جزاكم الله خير سؤال شرعيتنا وعيتي أفضل ويجب شيخ إن إبيل ما هيستو أو بيل في وقت مركز قال إلها وموقع ذكرى gabadha waxay tiri nin ibiila ma haysto ninkayga biilki waa gabay ciyaalkayga way baahan yihiin qaad looga raadsan karaa xoolo looga raadin karaa gabadha waxaan leenahay qaadku waa shay xaaraana inuu ina kusoo warwareego maalin walba la isweydiiyana waxa weeye waa arrin dhaga adayga wey qaadku waa shay xaaraana waxaa ku jira daroogooyin baa ku jira diinteena islaamkuna daroogada meel bay dhigtay waxyaaba daroogada afadirin iyo basandirin bay yidhaha culimada hadda daroogada baaraan laba daroogaa ku jira baa layihi bahalkaa daroogada ah oo ummaddeedii baabi'iyey akhlaaqdeedii baabi'iyey oo maalkeedii baabi'iyey oo sharafteedii baabi'iyey geedkaas lagama shaqaysan karo xoolaha laga kasbaana xaaraan wey marka ha ka shaqaysan carruurtaada ilaahay baa wax ka fiican ku siinaye shaah u karso oo meel qudaar u gado oo wax kale isku day kaa iska daa marka kaasi waxa weeye wax badan baa la sheegay lagana hadlay waa shay wax fasahaadinaya fasaad inaad tira arsaaq ma ka raadinayana wax banaan maaha nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiis buu wuxuu ku yidhi ina ruuxa alqudus malaku jibriil waa ruuxa alqudus nafatha fii rawci wuxuu ruuxdayda ku afuufay ama naftayda ku afuufay annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha nafina inaysan dhimanayn ilaa ay risqeedii dhammaystirato fattaqu llaha wa ajmilu dalab ilaahay ka cabsada oo arsaaqda meeshaa ka raadsanaysaan meel wanaagsan ka dhigta lagama yaabo adiga carruurtaadii ninkaaga arsaaqdii rabbi idiin qoray inaad gaftaan meel wanaagsan ka raad nabigeeni baa sidaa yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh meel wanaagsan ka raadso waxaa laga yaabaa iska daynta aad shayga iska daysay ilaahayba inuu wax fiican ku siiyo wixii kaloo aad meesha kale aad uga bayday ilahay inuu kuu barakeeyo laakiin waxaas yani waxa weeye xaaraanta aad lagu raadinayo dadkiina ilaahay wuxuu ku imtixaamay maal hel laakiin xalaal may mise xaaraan may nabigu sala allahu alay slam xadiis buu wuxuu ku yidhi kullu laxmin nabata bilxaaraam fannaaru awlaa bih hilib kasta oo xaaraan kusoo dhasha xoolo xaaraana ku baxa oo aad ku cayishid xoolo xaaraana naar baa goynaysa xaggee la geynayaa haddaad ku cayishid xoolo xaaraana ama jirkaaga maarad ku cuntid naar baa xoolaha baa jirkaaga goynaysa ha la iska ilaaliyo marka meesha wax laga kasbanaya meel xalaala waa inay tahay qofka muslimkaana hadduu xalaal wax ka kasbado ilaahay ducadiisa waa aqbalaya ilaahay waa subxaanahu watacaala laakiin hadduu xaaraan cuno ducadiisa waxa weeye la aqbali maayo qofkii salaada tukanayay waxaa ka wada qofkii musaafirka ahaa oo xaaraanta cunay oo xaaraanta ku qadayay oo xaaraanta ku labistay oo maanta dhan yaa rabbi lahaa fa annaa yustajaabu lahu see wax looga aqbalaya buu rasuulku yidhi maxaa laga aqbalaya xaaraan buuba caloosha uga buuxday xaaraana markiisi weeye waxa weeye wixiiso dhan baa xaaraan cabitaankiis waa xaaraan cuntadiis waa xaaraan allahu aclam جزاكم الله خير سؤال سدحيتنا شيخ دمركو ممري كان ويليا أو صغيرا بسم الله wiilka 7 sano hadduu ka yar yahay dumarku waa mayri kara saqiirka hadda dhashay waxay dadku u yaqaaneen ilmaha markaa dhashay laakiin ilaa 7 sano wixii ka yar 7 sano wixii ka yar way mayri karaan bay culimadu yiraahdaan ilmaha yarka marka dumarku waa mayrayaan dhibaato ma leh waliba madhabka xanaabiladu waxay qabaan iyagu ilmaha hadduusan 7 sano gaarin gabar iyo wiilba hadday qabsato dumarkana wiilka waa mayri kara hadduu 7 sano ka yar yahay gabadhana rag waa mayri kara hadday 7 sano ka yar tahay taasay madhabkaasi qabaan marka wiilka yarka ah dumarku waa mayrayaan marba hadduusan 7 sano gaarin allahu aclam جزاكم الله خير سؤال شافعيتنا شيخ وحنا معنا دولية وحنا مركب وتعالى إن ضرورة كيمينك كلا تحت شيء أما ضرورة كبيرة عن قرتي هاي دين كرتها بسم الله مسألة كوسابسن بابورك العرير كاهو يركاهو دولية اللي يراهدو qofka dumarka inay ninka darawalka meesha duwaab aragteeno waxa way qofka dumarka suuragal ma kursiga yarka ah oo laga yaabo inuu 20 senti yahay qofka dumarka salkeeda ma ku filan meesha meel la fariista ma aha waa inay ninka isku tiiriso qabsato way dhinaca kalena sidoo kale hadday gadaal tagtana laba kala dhex gasho mas'ala banaan maaha waa mas'ala akhlaaq burburo way shariicada islaamku hadda markay ma khayru sufuf rijaal dad banaan kala fadhiyo halka qof halka fadhiya waxa la leeyahay safka dambe ragga ayaa ragga u shar badan dumarka u dhow yihiin dumarkana safka hore shar badan ragga u dhow yihiin
waa dad kala go-aan oo cabaar isu jira aragtida is arkayaan ayaa loo leeyahay sidaas maxaa u malaynaysaa markii qofkii inuu dusha ka fuulo arrin shareecada aad uga soo horjeeda wey qofka dumarka ha ogaato maaragtay waxay aabbaheed iyo walaalkeed iyo abtigeed iyo adeerkeed iyo dadka maxaarimteeda ama zawjkeeda hadday dhinaca saarto hadashidaba male waa maxaarimteedi laakiin nin ajnabi ah inay dhinaca ku qabato oo sida meeshaan aragno ciriirkaa dusha ka fuusho isla markaana waxa weeye gaariga uu ku cayriyo marna isaga saa u dhacayso isla saa u liicay isla saa u liicayso mas'ala aad iyo aad fadeexada akhlaaqda diinteena islaamka akhlaaqda fadeexad ku tahay gabadhaasina waa dambi weeye nimanka sidaa yeelaya sidaa u shaqaystaana dambi bay ku jiraan waa inay gabdhahana gadaal geliyaan oo ay meeshaa dambe saaraan dumarka meeshaa dambe u daayaan iyadaa asturan iyadaa xafidaada ugu fiican oo ay gabdhihii ka dhacayn haddii rag la socon ragga hore asaaraan raggu iyagu dhibaato waxbay is yeelamayaan laakiin sida hadda ay tahay oo hadda ay maarata gabdhuhu dhinaca ka fuulayaan war waxaas wax bannaan maaha wax ummadoo dhan ka qaylisan weeye shareecadeenu aan ku bannaanayn gabadhu in dusha ka fuusho shaydaanna hadda waa imaanaya qof nin iyo gabar dhinac isku qabtay shaydaan meeshii waa imaanaya xumaani waa imaanaysa laa shaka shaydaanku meelaha uu ka faa'iidaysto weeye ayadoo bannaankaa kaa maraysa waxaa la yidhi hadday dariiqa soo madho shaydaanku hadday kugu soo socotana gaadadu ka fuulaya haddii sii socotana sinuhu ka fuulaya maxaa u malaynaysaa inay dhinacaba ku saarto dusha iska saaran tihiin wallahu aclam جزاكم الله خير سؤال شريعتنا شيخ gabadha aan daahirka ahayn ma la furi karaa gabadha aan daahirka ahayn ma la furi karaa shareecada islaamku furiinka waxa weeye way qur-aanka kulli caddeeyey oo kala dhigdhigay waxyaabaha qoyska ku saabsan furiinka iyo guurka iyo qur-aanka kala dhigdhigay marka furiinka dumarka labaynu u qaybinaynaa qof lala aqalgalay oo ninkeedii ay wada seexdeen iyo qof aan lala aqalgelin oo la furay iyadoo aan lala aqalgelin qofta aan lala aqalgelin iyadoo cidda ma leh waqti loo fiirinayaa ma jirto ama daahir ha ahaato ama daahiriyay ahaan dee urba ma jiro ilaa qofti lalama aqalgelin ama daahir ha ahaato ama daahiriyay ahaan cidda ma leh wuu iska furayaa ninku ilaa lama uusan aqalgelin wuu iska sii daynaya dahaarada u fiirin maayo iyadoo aan daahirna furi karaa iyadoo daahirna waa furi karaa amaa qoftu ninkeeda hadduu meel la degay wada noolaayeen ay gobol ku wada seexdeen culimadu waxaa ka wadaa diinta islaamku waxa weeye waxaa jira waxa la dalaaq sunni iyo dalaaq bidci dalaaqa waxaa loo qeybiyaa mid sunni oo sunnihii nabiga waafaqsan iyo mid bidci ah dalaaqa sunniga ah waxa weeye qofka dumarka in la furo iyadoo dhiig ka qubaysatay ninkiina markay dhiigga ka qubaysato daahir noqoto ninkeedu uusan jimaac la gelin oo uusan taaban markaasaa la furaa qofka dumarka ah markaasaa la furaa aayadda qur-aanka fatilka alciddatu alatii amara allahu an tutlaqa laha nisaa yaa ayuha nabiy idaa dalaqtum nisaa fadalliquuhuna liciddatihinna rasuul allah markaa dumarka furaysaan ciddadooda ku fura ciddadoodu waa markay daahiraatun ligayri jimaac waa markay daahir noqoto dhiig ka qubaysato aan la weli ninka yar sarag xilligaasaa la furaya ya فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء نبي صلى الله عليه وسلم من الأوان الله فرق أنا وحيتها خطيت ولا أور لا ده ولا فريا إذا أنت الوعد هاي ولا فريا أما أور هاي راد أما هو يراد خطيت أور لا ده ولا فريا لبضع شربة وحيا دلاء وحليا دلاء سني بالي هذا وإذا ظاهر نقطة ديك هو يستي من كان جنا إنسان سرق مركز على فرق أنا يدو أحاكر أور له لبضع شربة دلاء سني دين توافق سين laba jeerna waa dalaaq bidci ah iyadoo dhiig qabta gabadha lama furi karo maxaa yeelay cabdullahi ibn cumar ibn khadaab baa furay xaaskiisa iyadoo dhiig qabta markaasuu aabbihii u sheegay cumar ibn khadaab cumar baa nebiga u yimi wiilkayga saasuu sameeyey markaasuu nebigu ka carooday wuxuu yidhi murhu falyuraajichaa amar sii ha soo celiya gabadha waqti aan habboonayn buu furay oo markay soo noqoto oo dhiigga uu ku furay ka qubaysato ha la noolaado kabacdi dhiig kale markuu ku dhaco oo ay daahir ka qubaysato daahir noqoto waagaa haddii furiinku go-aan ka yahay si wanaagsan ha u furay isagaa taaban naas marka iyadoo dhiig qabta gabadha waa dalaaq bidciya weeye waa xaaraam waxaa kaloo xaaraana in la furo gabadha iyadoo dhiig ka qubaysata ninkiina uu jimaacay oo maridiisa ku maqan tahay markaana xaaraam in la furo labadaa jeer baa marka dalaaq bidciyo xaaraana waa iyadoo dhiig qabta iyadoo intay daahir noqotay ninkii sarkeen labadaa jeer lama furi karo waa dalaaq bidciyo laakiin furiinku waa dhacay waa saxaaraan laakiin furiinku waa dhacay
wallahu aclam. jazakum allah khayr. su-aasha dadeetoonaad sheekh gabadhu haddii ay ninka diido arrintiina ay soo istaagto inay noqoto furiin haddii weligu uu yihaahdo wax magana lagaama rabo ee gabadhaa iska fog maxay diidi ku rabtaa? bismillaah, haddii gabadhii ninkii ay diido tiraahdo ninkayga ma rabo, horta su-aashana faahfaahin bay u baahan tahay. qoftaa ninka diiday ma qof lala aqalgalayba ma qof aan lala aqalgelin baa faahfaahin bay u baahan tahay su-aashaan. hase ahaatee hadday gabadhu ninkeeda diido oo ninkii ay tiraahdo dooni maayo, laba midkood weeye. gabadhaasi inay tahay gabadh la aqalgalay iyo inay tahay gabadh aan lala aqalgelin, iyada lafteeda haddana labay noqonaysaayo inay tahay qof ninkan waxay ku diidaysa wax sharci ay tahay. ninkii baa wuxuu yahay nin dhib badan oo dhibay, ama hadduu doono salaadii buu iska daayey, soonkii buu iska daayey, khayr darre ku aragtay, khamraduu cabbaa, waxa weeye waa sideeday u nacdayba, ama waa nin damaamaha foolxuna wayba nacday, waa ka qalbi jabtay, adigu ninkii way nacday. wax adigii isagu xaggiisa ka socda iyada aan dambi ku lahayn ba ku nacday. waaya qoftaas iyada ah ama waxa weeye qaybta labaad waxa iyadu inay gar daran tahay oo ninkeedii oo jecel waan ceeb lahayn inay iyada isbeddel ku dhacay oo ay doonayso iyadu gar daran tahay. marka saasaa loo u kala duwan yihiin. ha ahaatee gabadha aabbaheed haddii marka gabadhu iyadu ay gar daran tahay naashisay noqonaysaa, waxa weeye oo ay ninka ka gar daran tahay naashisay noqonaysaa. haddii isagu maaragtay darada leeyahana way u bannaan tahay, marka hadduu ninkii yahay nin khamrada cabaya, nin wax belaynaya, way u bannaan tahay inay furiin raadsato, way u bannaan tahay. taas waxaan arar uga dhiganayaa yacni arrinta furiinka ku saabsan. ilaa dadkii hadda waxay iska bilaabeen dumarka iyo ragga iyo kelmadiina markii la isla dhaafo dumarka qaarkood albaabkay kasii socdaan. shareecada islaamkuna haddii ninkii uusan dhibaato lahayn, hadal yaroo la isku yiri iyo reerkii in si fudud lagu burburiyo shareecadu ma ogola. amaa midaan mas-uuliyadda aabbaha gabadha inuu oran karo meherkii anaa cafiyo ninkii iska fur, anaa meherkii farahan ka qaadaynaaye, masalada iyada culimadu aayadda qur-aanka tafsiirkeeda ayay laba ugu kala kaceen. aayadda qur-aanka maaragtay ka mid ah في سورة البقرة كنت إلهي وحده سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مهرك إني دمرك عافيان إلا أن يعفون دمرك مهرك إني عافيان. ولو مهرك سلوكها قفت دمرك على لا أغنقرين أو مهرك بهافك يهي نسك يهي أيها لقهد إلا أن يعفون دمرك إني عافيان مهرك ودي أو دمرك مهرك يجا ملك يسكله ويعافين كان أمرك الله يسفر يميك وحي ورنكرتا meher baa kugu lahaa $1 buu ahaa $500 baan helin adna $500 shanteedii boqol waa kugu daayay iska kayfo way dhihi kartaa dumarku inay cafiyaan ilaa ay yacfuun inay cafiyaan mooyaan aw yacfu walladii midkii inuu cafiyo biyadii cuqdatu nikaax xiritaankiisa gacantiisa ku jiray taasay culimadu marka isku khilaafeen oo qofka gacantiisa nikaaxa ku jira ma aabaha weliga miyaa mise waa zawjka. hadda labadu waxay ka nikaaxa markay sameeyeen aabaha iyo ninka ayaa wax isku meheriyay oo gabadha meheriyay aabuhuna weligeedii buu ahaa ninkuna zawjkeedii buu ahaa. labada ninkeeba aayad lagu fasiraya. ibn Abbas iyo dad badan oo la socdaa waxay leeyihiin aw yacfu alladhi biyadi cuqdatu nikah waxay leeyihiin aabaha weeye. waa hadduu aabaha waa ka gabadhiisa ninka kan maslaxad u ahayn ama iyadiiba diidanta ama meesha aan wanaag ka dhalanay inuu yiraahdo waxa weeye war iska sii maxaan faraada iska sii daameerkeeda waa ku daayay waa u yeeli karaa bay leeyihiin iyagoo waliba ku darsanaya ilaa ilmaha nabiga ninku markuu yiri wuxuu ku yiri adiga aabahaaba adiga maalkaaga aabahaaba iskale anta wali maalika li adiga aabahaaba maal adiga iyo waxa maalkaaga aabahaaba iskale. gabadhan aabaheed maalkeeda yaani sida iyadaba aabo ugu yahay maalkeeda waa kaga hanti hori karaa yaani sidaas ay mareen marka iyagu oo aayadu waxa ku fasireen maaragtay aw yacfu alladhi biyadi cuqdatu nikah waxay ku fasireen inuu aabaha yahay zawjka wax meheriyay inuu aabihii baa ka wada aabaha inuu yahay. أما علماء كانوا وحي من هذا آية تفسير كذا وحوي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وزوجك إنه يرى هذا مثلا قبل يكون دور معلوم مهري شنبا إسقى وصهار لها شنبا قبل وسين لها وكفريا ويا كوكي دورنا كل واقع ودسي وحنا هي سوء علمي هنا أما هذا وضع قاضي وحبق قيبتي أنا واقع دريا ما دام قبل ينتو جرسي وجور كذا كنا قبل الحوار أنا قلبي شفته مارك اللي قبله ولا يا ماركتي نص بينما قاضي الله ينتي كلام واقع دريا مهر كان marka taas u khuduucaya. culimo kale waxay yiraahdeen culimada nafsadeeda kamid ah gabadhu haday bikra tahay inan tahay waa ninkii laba aqal haday inan tahay ama qof xooga aan isku filayn oo maskaxiyan ama qof yar tahay ama qof aan maarta isku filayn ay tahay aabuhu meherka isaga maamuli karo waa cafin kara
hadday laakiin qof weyn oo iyadu maaragtay ismaamuli karta tahay haddee inay hadduu ninkii iyada waxay isku qabsadaan qaali ku kala saaran mooyaane waxba maamuli maayo aabuhu bay leeyihin waxba maamuli maayo meherkeeda faruhu kala baxaya saasay yidhaahdeen marka khilaafaadkaasaa ka jira hadalku wuxuu kusoo ururayaa gabadhaas hadday tahay gabar yar ama gabar aan isku fillayn maxaa kale sida tafsiirka aayaddaas ama xadiiskeenu akhriya nabiga inuu yidhi aabbaha iyo adigaba maalkaaga iyo adigaba aabbahabaa iskale uu yidhi in gabadha aabbaheed hadduu maslaxad u arko inuu qoftaas meherkeedi hadday tahay maaragtay meherkeeda oran kale waa nudaynay iska sii daa hadday tahay qof weyn iyadoo isku filan oo waxyaabahaas aan ahayna inuusan haba aabbaheed meherkeeda u gacan dhaafine maaragtay inuu maxaan ku rahdaa iyadu maaragtay haddii ay kala bixi waayaan ninkii qaali uu kala saaro wallahu aclam جزاكم الله خير جزاكم الله خير سؤالك تدريتنا شيخ ذهبك يعني مشاع هذه الأيام وذهب أيام الله استعمالي قيمه سهوس قانون بقى كان عصرنا قادر بلا مبناتا بسم الله الشيء مركز لقضيه هدو مرنا عصب يا مرنا دوق يا هاي haddii dadku curfiga binaadamka waa la yaqaan shayga haddii muddo la sitay qiimihiisa wax waa ka go-ayaan hadday marka wax u dhigma ay tahay qiimaha isbeddelka ku dhacay dhibaato ma leh oo kan duuga ah oo muddo lagu dhaqmana waxa weeye intaas maa siinayaa isaga laftiisa kaa duuga ah oo muddada lagu dhaqmay baa wuxuu kala yeelanayaa qiimo kala yeelanaya shay muddo dheer la qabay iyo shay muddo gaaban la qabay waa dhici kartaa dahabka isbeddelka ku dhacay inuu iska sahlan yahay oo uusan aada hore ugu xumaan oo dahabka hase ahaatee shaygaa la qaatay shaygaan waxbaa u dhaxaynaya qofkaas wuu garan karaa inuu dadka dulminayo oo shaygii qiimo uusan joogin liito u ka siinayo oo lagaba yaabo suuqyada qaarkood inay ciriiri iska yihiin laba qof ama hal qof fadhiyo suuq dhammaaba suuqa dahabkaba dad yari fadhiyaan oo meeshaan suuqba ka jirin qofkaas oo kale meeshaas haddii suuq weyn tahay oo dadkii oo dhan ay wada fadhiyaan oo qofku intuu suuqa soo baaro shaygu qiimaha ka joogo oo dhan oo ogaado waxa uu shaygiisu joogo uu soo fahmo meesha qiimihiisa uu marayo oo qof markaa sidaa kaga gadatid hadda iyadu shidaba maraba laakiin haddii suuqiiba iska ciriir yahay qofkiina wuxuu isaga baahan yahay adigu inaad ka dadaashid inaad qofkii aad walaa tabkhasu naasa ashyaa'ahum marka qur-aanka uu leeyahay qofkii shayga ha ka dilin laakiin ka iibso in la kala faa'iidana diinta islaamku waxa weeye waa ogoshahay oo labada qof haddii qofku wixiisa ku qanco inta aynu ka siisto hadda nin reer miyaa wuxuu keenayaa maanta badeecad ama nin magaalo kale ka yimi suuqii markuu kala ogaado shaygiisii wuxuu rabaa in deg deg ugu gadmo qiimii hoos u dhigaya wuxuu rabaa haddana waxaysa qaato waa u bannaan tahay marka shaygaas kala qiimaha midna cusub yahay midna bahalka yahay waa wax bannaan haddaan wax kale ku jirin wallahu aclam جزاكم الله خير سؤال سيدي الجماعة شيخ هذا سؤال تكرر وكانت قال سيدي كريم سيدي الفاتحة ركوع طمأنينة متارك بانا بسم الله متارك بانا هاي قفك صلاة تكرر يوحي ليه ركوع ذا يا طمأنينة ذا يا فاتحة هذا سحر وايد قفك قف حقرنا يومي والضمانينة قفك إنه صلاة كحسله ركوع ده إنه صفة عن ركوعه وواحد قفك أمك ما بفهم كره ركوع ده ماشي لقمر يصير الله ركوعي والله تسم كده هو ركوع رقب صنيع الضمانينة يحسنوني لقفك هل مرة ما أعرف كريه أقول فلان حوالي من الشدة ده واحد تايدك قارتي عرب كله هذا هاي فاتحة إني كري وايا سيب هذا قفك أما وايا الموضوع أما قفك محافظ هذا قف حوالي عرب كسوسية هاي وهذا هاي تاسو كلاودي بدن عرب لa'aanta faatixada ku adag tahay iyadana qofka ku dadaalo faatixada inuu barto oo faatixada iska saxo oo salaada rukni kamid way arkaanta salaada faatixada inuu qofkii barto way hatta qofka faatixada garan waaya waa uu tukanaya waxa way laa yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha inta faatixada ka baranaysa hatta adkaar baa intu kale subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah baqiyatu salihat adkaar baa ku tukanaysa faatixada inta ka baranaysa hatta salaad deemaysi marka qofka awoodiisa fattaqullaha mastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ina tadaashillah inaad salaada barashada ku tadaashay ilaa wax kasta ku qaadatay marka dambe inaad ka jawaab keentid baa laga rabaa saas ku cilmiina hadiiskii musii'u salaati baabka aabba ah iyo hooyo hadiiskii musii'u salaati ninkii masaajidka soo galay rasuulku waa fiirinay sallallahu alayhi wasallam alayhi salaad buu tukaday markaasuu nabiga u yimi salaamay markaasuu nabigu calaykum assalaam salaantii u radiyay markaasuu wuxuu yiri laabo oo soo tuka ma aadan tukanin
ninkii intuu noqday buu soo tukaday nabigu ku soo noqday waa salaamay markaasuu wacalaykum assalaam jawaabtii intuu ka qaaday wuxuu ku yidhi noqo oo soo tuko ma aada tukan markaasuu mar labaad tukaday markaasuu ku ceshay 3 jeer markii inta uu marinayay yaa rasuulullaahi sidaa ka badan anigu ma qurxin karo ma garanayo taa middaa ka bedelan markaasuu nabigu u sheegay salaada sida loo tukanayo salaada wuxuu yidhi xiro intaa qiblada u jeesatid markaa xiratid qiradu u sheegay faatixada la akhrinayo ma waliba ma uusan faatixada ma taysana macaka min alquraan akhri quraanka taqaanid dumaanina ninkaa meeshuu khaldaaya salaada dhammaanteed masuul salaatana dumaaninada yahay rukuucda ictidaalka sujuud fadhiga idminaanka waxa la yiraahdaa ama dumaaninada xasiloonida salaada lagu xasilayo meeshuu khaldaaya meeshaas yahay meeshii nabigu si fiican u baray hadiis masuul salaati qofka raba marka inuu salaada fahmo xadiiskaas sharaxaadiisa iyo sida loo faahfaahintiisa waa inuu dhageysto oo yiraahdo maqashiyo dadkuna ay tusaan salaada aqoonta oo baraatiga ahaan loo tuso oo qofka in afka looga warramo waxaa ka fiican baraatiga ka soo xoog badan nabigu maalin intuu masaajidka mimbarkiisa fuulay salawaatullaahi wasalaamu calayhi buu dadkii salaada mimbarka ku tukaday oo markuu qirada dhamaystaba markuu soo degaayay gadaal markaasuu sujuudayay markaasuu intuu fuulo haddana mimbarka ku noqdo salaadii markuu dhamaystay wuxuu ku yidhi صلوا كما رأيتموني أصلي أتكذا سيادي أركيسين أنا أتكناي براكتيكال وي سيدا سوكر أو تستيد لما تصيو أو إنها أو أساء وتشد قفك أتكناي سيدا سوكر لدك صلاة الله تصبع في عن قفك واكشنا وقالنا إياه دمانا نودي مرد ما خطاي غير هذا إنه قفك دالوي والله أعلم جزاكم الله خير سؤال شكرا waxay tiri gabadhaan ninkaygu weysada maiga jabiyaa su-aasha kale ay ku darday waxay tiri salaada layaa salaatu tasbiix maxay tahay waa saytee ragcadood bismi illaah ninkaygu weysada maiga jabiyaa hadi masala dadku had iyo jeer waa soo celceliyaan rag iyo dumar baa weyse kala jabiya madhabu shaafici keliyaa qaba imaamkaas keliyaa qaba rag iyo dumarku inay weysada kala jabiyaan haddii caadi qofka gacantiisa ugu dhacday ay niyad isugu imaan labada qof ee caadi imaamu shaafici baa qaba imaamu shaaficina wuxuu qaatay aayadda qirada ku jirta aayaddu waxay odhanaysaa aw laamastum nisaa aayaddaas aw laamastum nisaa haddaad aayadda markii aw laamastum nisaa qirada dhahaysa waxaa jirta qiro kale odhanaysa aw lamastum nisaa oo la alifka ka daynaysa laamastum mufaacala weeye laba qof oo dan iska leh oo istaabanayo weey laamastum hadii la waa laba qof oo qoys weeye sheekaysanaya hadii laamastum la akhriyo hadaa dumar jimaacadaan saas quraanku jimaac u sheegaya ayaba salaad qofku weysada ka jibinay laamastum istaataabasho laakiin qirada kale oranaysa aw lamastum nisaa qiradaas shaafici qaatay wuxuu leeyahay lamastum hadaa dumar taabataan hadii qirada marka iyada lafteediba waxay u baahan tahay qira quraanka lagu akhri karo ma tahay oo in la daliishado oo nabanto oo qiradaas shaafici qaatay lamastum taabasho weeyulay haday labada qof istaabtaan oo jirkooda isku dhacaan ama qasad ha ahaadaan iyo qasad ahaan weysada waa jabaysaa bulay waxa ku haray culimada kale waxay leeyihiin waxay qaateen oo weysada rag iyo dumarku kala jabinayaan yiri laba xadiis oo labadaba ummul mu'miniin Aisha bint Abu Bakr ay warisay habeena midna waxay ku warinayeen labada Bukhari Muslim bay ku yaaleen labada xadiis midna iyadoo nabiga qolkeedii la hurdo guryahan aad u yar yaraayeen xaasasku ay deganaayeen guryo yar yar ay ahaayeen salaada nabiga sallallahu alayhi buu tukanayaa caawna buu taagan yahay salaada ku jira intuu qirada u taagan yahay lugaha ay bararaay marka lugaha la kala bixisay waana markooda isku la hurdeen meesha wada jiifeen lugaha isa u sii deysanaysa mar allaale markuu qirada nabiga soo dhamaysto oo soo rukuuc sujuud yimaado si uu meesha ugu sujuudo buu lugta ka qanjarifanay qanjarifada waa taqaan Soomaaliya sidaas qanjarifu sameeyay markaasay lugaha ka soo laabanaysa markaas sujuud markuu dhamaysto oo istaago qirada ku noqdo bay haddana lugaha la kala baxaysa xadiis waa xadiiskaas mara ka xigtay iyo xagga ahayd iyo xadiiska la ta'awiiliyo waxba tari maayaan taas wax weey waa xadiiska Bukhari Muslim ku yaala oo nabigu hadba xaaska waliba Aisha way u daaranaysaayo waxa weey in arinta lagu eedeeyay ka baqaysa waxa leeyahay wal buyutu yawma idin laysa laha masabih riwaayada Muslim sidaas ay dhahaysaa ayaantaana guriyuhu ma lahayn fayrus ma lahayn oo mugdiba aqaladu ahaayeen fayrus ma ana shida jirin baylaan oo firso xadiiska labaad oo Bukhari Muslim ku yaala Aisha warinaysa waxa weey habeen bay Aisha ka caday masanadii dhinaceeda ma jiifo habeenkeedii bay ahayd way shakilay inuu xaafadii kala aaday uga shakilay
markaasay raadisay waxay istir horta intaadan meel kala aadin bal masaajidka ka dhex fiiri masaajidkuna waa mugdi iyadoo sidaa masaajidka u taataabanaysa firfirinaysa nebiga cagihiisi oo intuu weesaystay masaajidka ku dhex tukanaya wariga caaishana waa qofkii hadda madiina taga masaajidka nebiga taga meesha rawdada cad oo mimbarka nebiga u dhow albaabka kusoo jeedo yarka halkaa guriga caaisha oo qabriga nebiga ku jiro meesha halkaa meeshii masaajidka iridu u furan yahay gurigu u furan yahay way baarbaadhay masaajadihiisi oo qoyan ay gacanta la heshay nebigu salaadiina kama bixin weesaa iga jabisana ma oran xadiiska caaisha sina warinaysa bukhaari muslimna waa qoreen labada xadiis iyo xadiis kale warinaya ninka habaryarta u ahayd caaisha ka warinaya oo waxa ahaa maaragtay curwata ibnu zubayr ilaa asbabta abubakar baa dhashay curwo dhashay marka waxa yidhi waxay ku tiri caaisha rasuulku qabala bacda nisaa'i dumarkiisa qaar ka mid intuu dhunkaday ayuu salaada aaday walam yatawadamana weesaysan markaasuu yidhi habaryartiis wuxuu ku yidhi u malayn maayo adiga inay ahayd qof kale u malayn maayo fadaxikad way qososhay markuu yidhi qofta uu dhunkaday adiga inay ahaydna qof kale u malayn maayo ayay qososhay tasdiiqan liqowli iyadoo hadalkiisa rumaynaysa waa la fahamsan maaha intaasoo nusuusay qaateen waxay leeyihiin laba kala jabiyo weesada madhab saddexaad baa jira wuxuu odhanaya oo culimmadu yidhaahdeen haddii qofka gacanta kaaga dhacday ama aan dan la kala lahayn weesadu jabi mayso laakiin haddii shahwo laysu taabto hadalka waa la caddeeyaa weesadu waa jabaysa saas madhabkan saddexaadna waa jiraa maalikiyada qayb ka mida dadba culimmada ka mid ah ayaa kaa maray wallahu aclam جزاكم الله خير سؤال كلام شيخ مقنعة هنا حتى حجاب وين ودوك شيء كبعدنا أن كتب بحيمان توضم مع وسطنا مشيدي بسم الله حجاب وين إن قاطع ودوك تابعنا واسد الله بهناو النبي صلى الله عليه وسلم حديثك هذا ميل حوجا أما وسخلة أما بيو يفجران أما ميل عيد أصومرتي ميل حوجا وحله ماشي الدموع عهدا على واحد الطهي نظيفين يسا وحوي واحد بعد تعمله هريت الرجال يدمر كدين الإسلام والله بيك كلامك منك واحد لا يحارني مرض يسأله عن قوية كهوس مريوه هذا إنكار بعد عليه بالدين وتفحيدنا يان وينشي لك الجيران واحد مود يسألين عقل ضمن وشقين وهذا مجبر بعد محمد لو تشيلي سلوك كوتشيلي سا مسلم هو الدم كبائر قف مرض لوك كوتشيلي أو لوك سام مرض كوتشيلي وحوي رجع كهلا يا أما جبتها مريها وحوي لو هذا قصدان لوك هذا مرض شيء تميسه ولا أقولي هاي ماشى هذا صوم مران مال عن فعلنا أما لوك بينا ماشى الدماء صوم مران وقرار لوك عقلا صار الذي فينا يسا وحبا يوسوس سكوردين وحوي دين الإسلام كسلاس يرخينا شبرا حديث تباسات المامس مركا شيء النبي صلى الله عليه وسلم وحاسونا من دون أستر الله الرباع سلاوي مركا إن شاء الله تعالى مريها وقال لي قبله سلا صار الرباع الله أعلم جزاكم الله خير سؤال كلام يقول واحد شيخ وحنا بين من كشف كان صدوري والدك ولا ترى تبعنا خلاف شكرا في الماء أن والدكم وحي دريش الحديث كأه شيطان بارد صدحيا وحي بارد بسم الله واربع واحد تيري واحد طبعا أنا أقول والدك إنك شو كان صدق وحوي شرع الإسلام أرتق جوانا أقول جودا إنكو وحوي ما دواب شيء أقول رمبا naga iyo umada islaamka suu yahay wax badan bay noo dhaxeeyeen naga gabdhaha guriyahana ma joogaan meeshay rabaan bay maraan meeshay doonaan bay wareegaan shidadoodu waa badan tahay sideedana quraanku waa celceliyay waqarna fi biyutukunna wala tabarrajna tabarrujat al-ula wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula quraanku dhahay inaad qof isqaawiyo oo banaan wareego waa loo diiday guriyaha joogaa la yiri nin ajnabi inay gabadhu laba meel cid la tagto shaydaan baa laba ku noqonaya waa sax ha ahaatee gabadha hadii ninkaani nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada way weydiiyeen oo nin baa yiri gabar baa dabcan guursado saxaabiya qurat ibn shu'ba hawan fili saxaabigaasi markaas wuxuu yiri ana nadarta ilayha waliba gabadha reer madiina weeyib markaas wuxuu yiri nimanka asaarta ka dhalatay markaas wuxuu yiri ana nadarta ilayha ma iska fiirisay markaas uu yiri maya markaas uu undur ilayha iska fiirin sidaasana uu inaad daa'ims noqotaan
qofte gabadha iyo ninka isguursanaya intii aan isnikaaxsan inay sarkaan oo iyaduna ku qanacdo isaguna ku qanco la istuso ayaa fiican waalidkana gabadha haddii ninka iyadu rabto inay gurigooda ugu yimaado waa qof aan xumaan rabin laakiin guur rabta waxaan la rabaa inay u sahlaan laakiin qol inay iskula xiraan xaaraam sida ay sheegayaan meel munaasaba oo waxa weeye aan xumaan ka suuragali karin ha fariisiyeen haddii gabadhooda ninku uu rabo ay israbaan hadday heshiiyaana waxa weeye kabacdi gabadha saah ku siiyeen hadday labada qof isku fahmaayana waqti badan inuu qofku guriga ku soo noqdo ag taagnaada gabadhi sax ma habeen baa ku filan ama laba habeen sharcadu waxa weeye waad ogtiin akhlaaq bay leedahay marka gabadha iska fiirinaysid ikhtiyaaru zawja marka qof dumar dooranaysid iska fiirinteedu waxa weeye waa lagu ogolyahay mar inaad iska fiirisid haddii xoogaa ka dhimanaado mar kale haddana iska fiirisid haddana xoogaa wax ka dhimanaadaan ilaa waa dhici karto qofka marka hore inaad ku qanacdid in xoogaa haddana aad adoo rabo qofkii haddana wax yar ka dhimanaadaan mar kale bal ina aragtid waxa weeye waa lagu ogolyahay mar iyo 3 iyo 4 bayna aragtid hase ahaatee wixii inay iska sii jiitaba sanada qaataan wax banaan wax fiican ma noqonayso arrintaa wax fiican kama soo baxayaan taas waxa weeye marka labada qof haddii guurkiis la gaaran ha loo dhameeyo waalidkoodna ay la rabaan gabadhiina ay ninkaas uu ku fog yahay haddii maaragtay labada qof isku qanci waayaana ha isdaayo laakiin iyagu inay u sahlaan waa fiican tahay intii gabadhooda ninkaan ama telefoon balaayo uga sheegi lahaa ama ay ku kalif lahayd marka dambe hadday waalidka cadaadiyaan inay wax kala gasho oo nin la carabto waxaan macaan fiicnayn inay gasho inay guriga ku tusaan baa fiican meel munaasab oo aan ila darka soo geli karin ay fariisiyaan sida u fiican waana sida akhlaaqda ku jirto inaga waxyaabahaas way lagu badan yihiin waxa weeye in yani gabdhihii luuqyada lala taagay habeenkii saacado dambe ay dalooyinka ka imaanayaan wiilasha ay iskala socdaan meel baa laami waxa arkaysa habeen 6 saaco habeen gabdho wiilal la qosay gabadh wiilal la dhex ka dhex qosaysa hadda ka soo dareeray maalin meeshii lagu daawani ku badaha gabadha ammaan ma tahay maxay tahay intaas oo mid dhex socota habeenada 6 saac gureynaysa akhlaaqda aad bay akhlaaqda u wanaagsan tahay arrimaha noocaas waxa la rabaa waxa weeye in la ilaaliyo loo baahan yahay dadka akhlaaqdiisa la ilaaliyo akhlaaq burbur way waxa noocaas oo kala waa in aad iyo aad loo ilaaliyo waxaan kaloo boorinayaa dadka waalidiinta ah gabdhaha yarad baa lagu xiraayo guurka waa laga xanimay waxa laga yaabaa ninka ay soo nin intuu soo doono waliba inuu diin iyo akhlaaq leeyahay oo fiican laakiin iyaga ama maal bay rabaan ama wax kale ay rabaan ama waxa laga yaabaa reerahaas wax kale inay ujeedo kale yihiin inay kufka u diidaan masalada la yiraahdo gabadha markuu soo doono nin kufkeeda u qalma in laga hor istaago masala waalidka dambi ku away hadhowna waa laga yaabaa nin fiican ba loo waayo caanisan noqoto 40 sano guriga ku gaadho xaqiiqa waa khatar weey hadda ka hor baan kitaab akhrinayay anoo Kismaayo jooga waxay ahayd 99kii gabar Sacuudiyaan ah waxay qodhay risaalo qortay yaraanteedii si iskuul loogu dhigay 20 sano ku gaadhay jaamacad loo diro 30 sano dhaaftay markaas iyadoo qof weyn ah haddana waxa la shaqo muddo wax lagu soo baraayay 40kii bay dhaaftay ayaanta dambe nin baa guursaday gabadhii dal waa laga waayay dhakhtar bay tagtay ukuntaadu waa shaqeynaysa waad ka gudubtay baa xilliga wax dari lahayd risaalo qodno waxa la yiri waxay tiri asmi'uni kalimatu mama هاي كلمة هاي مقشية هذا هل عن هاي إلى هذا هذا هي لها بيلاده أسمعوني كلمة ماما المقشية كلمة هاي وهي كمان والميرز حبنت هذه أنا مش غيري سمعت وقت ويكب بتبتوي قبلها مركي يعني لقد دقيق وأقول هو الاستو عايش وحلو جريه لا يجوز من وقت سمعنا ده وحوي واجي استراوشي وقت مر بعد تبر برجري قبلها يقول كذا يتوح ورايا رجل دجالة من الجلاد مر بيجيبوا حتى هيرمي كذا نقول بس الوايان كل واحد يسكن بدل بأهيد هذا واحد مودع ما مركز لما نقدها فرصة ما صورنا قطية يدو شريط متدال بوسن جري بوميست ورسمه عالي جري حتى البوميست يجي والربابة أو واحد يقول لي أنت صور السنة هدانا جاري أو أنت صور وأنا بيرون نقول ديانا لك أيام نقول كذا أنا أفرتك أنا نافه أيام مركز أفرتك أنا زعما عمرو سميني سا مركز قبلها وين هرول له جوريو أو واحد ويلي أي مارك كفى إلى سنة عمر والله أفرتني الله بس أنا بحالي هذا بخاطر تآذي يقام يعني كده ما يوحي نشوان السين والله أعلم جزاكم الله خير وأسألك ما يشاء شيخ حاجي وبكت على ويسيك نشيدوي كله موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والموسيقى هي سهم موسيقى لما بدك يسنكره إلهي واقو امتحامي إذا عديه إلهي واقو امتحامي عبد الله بن عمر بن الخطاب يا أبو مغلي
isagoo soconaya oo nin addoonkiisa ahayna la socdo ayuu wuxuu maqlay nin garaacay muusig garaacay markaasuu labada dhagood faraha gashaday labadiisa farood wuxuu geliyay labada dhagood markaasuu socday markuu muddo soconayay uu ninkii ku mawlihiisa wuxuu ku yiri atasmac wala maqlaysa heesta wali ma maqlaysa markaasuu madaxa ruucay nacam markaasuu sii socday wala maqlaysa ha wali waa maqlaya waa sii socday mar Allah markuu yiri la hadda waxba maqli maayo فأخرج أسبوعيه من أذنيه مركز فرح كسر صار دقيه سئلس كل عين وسحاب جاس جريب كأ باوي مكبق يا هي صاصير في المجلس هذا ما يسقبل يريد لو تمنجراه أو حال وفري ما أنت لاقي هي سهل وفري نيك جشاعر كأها وضية الضائع الأورنجري أو قبل ينا ولا وطه وسفر يكوجنا ونيك سويد عرفته كسويدي مركزه نيك يقول بس موسيقى بحق بحاجة حمال التوايا مركزه نيك قبل بالوري ولا مرتجلي gabadhii yareed reer uga yarto gacanta qabsado dhaqaaqay ninkii guriga lahaa ma isku naxay dadka martigelisay maxay u caroodeen wixii riyaa ku xumeeyay yaa martigelinteeda meel kaga dhacay cidba wax ka sheegtay maxaad nooga tagaysaa maxaad nooga buureynaysaa wuxuu yiri wax kale idinku kuma dhicin martigelintiina wax kale kuma dhicin gabadha yarta aan wataa waxaan uga baqayaa gurigeena waxa ka jiiqjiiqleh musiga gurigeena ka baxaya gabadheeda yarta inuu uga fidmay uga baqaya mardamiya wardamiya wixii baa meeshii lagu la baniday waa la baniday oo fiirso shaygan موسيقاهي وحبنان معها وادرت إذا عليه والو امتحان dadka qaarkiisna hadda waxay bilaabeen in anashid carabiya muusiga lagu soo daro war anashid carabiya lafteedu oo laga yaabo qaar inay ereyad diiniga loola jeedo lafteedu hadday muusiga ka reeb hadday muusiga muusiga baneeyay muusiga naqmada tan waxa kale garaacay isaga amal shaydaana waa in dadku ay aad isaga ilaaliyaan fahmaana waxa khatartiisa xumaan buu beerayaa nifaaq qalbiga wuxuu kaga beeraya qofka fusuq buu kaga beeraya xumaan oo dhan buu ku beeraya qalbiga waa qalajinaya shayaadiintuna waa soo gabranayaan waa quraanka shayaadiinta baa leeyahay bahalkan heesta ay muusigeedu shay marka Allah inuu marka quraanka akhrisanayso quraanka looma jidboodo oo dadku quraanka kuma ooyaan shaydaanku meesha muusigu ka socdo kulli meesha waxa la isku imaanay waa meeshii quraankiisi weeye muusigaan quraanka shaydaanka wallahu a'lam jazakumullahu khayr intaas ayuu ku egtahay su'aalihi wixii noo harsan